shirkan oo ay ku kulmeen qaar ka mid ah beelaha hawiye ee iyagu qayb ka ah kuwa dega gobolada Jubbooyinka ayaa waxay uga arinsanayeen dhibaatada siyaasadeed ee ka taagan maamul samaynta iyo gacan ku haynta goboladaasi oo bariyahan noqotay hadal haynta ugu weyn geyga Soomaaliya. hawiye isugu imaanin inuu wax cid dulmiyo, cid aflagaadeeyo, cid xumeeyo. wuxuu isugu yimiday maantay in ummadda Soomaaliyeed oo dhan in la dulmiyo in oo raalli ka ahayn. Jubbooyinka waxaa ka jira niman jabhada sheeganayo, beela sheeganayo, wax kale sheeganayo ee doonaya in ay dadka meesha jooga dulmiyaan. anagana waxaan u taaganahay halkan inaan la dulminin dadkaas walaalaheen ah ee Soomaaliyeed. deegaanka Jubbooyinka waxaan leenahay hal loo daayo dadka degan col ma aha mana diriirin weligood. haddii cid kaalmaynayso dawladii ayaa joogto, in dawladii la diido dawlada kalena dabada lala galana xaq maaha, saxna maaha, mana la yeeli karo. Jubbooyinka aan taageerayno ummadda Soomaalida ku nool waa la yaqaan, way yaqaanaan. waxay sheegan jireen markay wadankay soo galayaan caasimadda reer Jubbada hoosaana kuma aan aqoon aniga maanta beel. gobolada Soomaaliya dhammaantood waxay wada hoos tagaan dawladda Jamhuuriyadda Soomaaliya oo lagu soo yagleelay magaalada Muqdisho oo ummadda Soomaaliyeed oo dhan u iftiimisay rajo cusub iyo dilo cusub. Jubbooyinka meelihii qabyaalada ugu yareed ee heedeena maanta qabyaalada reer Jubbooyin ku soo noqdaan ayada lafteeda qalad ah. sida anaga reer beledweynaha aan u dhihi jirin ayaa waxaan maqli jirnay waxaan nahay reer Waamo, waxaan nahay Jubbooyinka. odayaashii, aqoon-yahanadii iyo dumarkii goobta ka hadlay ayaa sheegeen inay maamul samaynta loo daayo dadka deegaanadaasi, marna aan maamul dibadda laga soo dhisay aan la qaadan doonin, dawladuna aan la iska dhigatirin in maamul kasta oo Soomaaliya ka jira iyada hoos imaanayso. waxaan u malaynayaa anigu waxaan leeyahay maanta cidii hawiyo nabad baryaayo waa wax la yaab leh oo aan anaga leenahay war nabad aan rabnaa, nabad aan helno. marka horta waa ku faraxsana inaan maanta nabad raadino. waxaan ugu dambeynna waxaa halkaasi lagu soo jeediyey warmurtiyeed ay soo diyaariyeen beelaha hawiye ee UK oo dhowr qodob ka koobnaa. kow, in dadka deegaanka Jubbooyinka iyo dawladda loo daayo maamul u samaynta Jubbooyinka. labo, in la joojiyo faragelinta ay dawladda Kenya ku hayso maamul u samaynta Jubbooyinka. saddex, inay joojiyaan dulmiga jabhadaha iyo shakhsiyaadka sida gaarka ah wax u raadinaya isla markaasna kala geynaya shacabka Soomaaliyeed. afar, in maamulada dalka Soomaaliya ka jira ay joojiyaan faragelinta qayaxan ee ay ku hayaan dadka deegaanka Jubbooyinka iyo dawladda federaalka. shan, waxaan ka soo horjeednaa maamul lagu soo dhisay dibadda dalka oo ay soo dhoodhoobeen dawlado shisheeye iyo shakhsiyaad dana gaar ah leh oo lagu qasbayo dadka deegaanka Jubbooyinka. lix, oo ah kan ugu dambeeya, ugu dambeyntii waxaan shirkan si buuxda loogu taageeray dawladda federaalka ah ee Soomaaliya oo uu madaxweyne ka yahay mudane Xasan Sheekh. waad mahadsantihiin. 29kii bishii September ayay ahayd markii xarakada Al-Shabaab ay faarujiyeen magaalada Kismaayo xarunta gobolka Shabeellada Hoose. maalintaas wixii ka dambeeyay waxaa bilowday hardan siyaasadeed ay ku tartamayaan beelaha wada dega gobolada Jubbooyinka sida loo yaqaan. dabcan shirka halkan ka dhacay ee maanta ay ku wada shireen beelaha hawiye ee ku nool dalkan Ingiriiska gaar ahaan magaalada London ayaa waxay baaq u soo jeediyeen dadka ku nool gobolada Jubbooyinka, isla markaana waxay sheegeen in Jubbooyinka ay yihiin meel ay Soomaaliya dhan wada degto, cid gaar ahna aysan lahayn. Ibrahim Umar Baafe, wararka Universal, waqooyiga London.